بسم الله السلام عليكم سؤال عشان اساعد في غالي واحد رجعنا في عندنا سؤال the SG codes real space real man real talk real actions كوداتك SG community goob dhab ah hadal dhab ah rag dhab ah ficil dhab ah ma dareentay maanta in noloshii ay noqotay kaliya wax la isku sawiro igu sawir cunto la isku sawiro dhar la isku sawiro guri la isku sawiro gaari la isku sawiro in iskriinka taleefankaaga uu kaa xadayo raganimadaadii waqtigaagii enerjigaagii iyo ficilkaagii dhabta ahaa dhalinyaro fara badan oo maanta nool waxa ay ku nool yihiin virtual world nolol dhalanteed ah laakiin halkan xaqiiqda ayaa taala ku soo dhow the SG codes goobta dhabta ah hadalka dhabta ah ragga dhabta ah iyo ficilka dhabta ah maanta boosaskii raganimada dhabta ahayd aad buu u bannaan yahay maanta sababtoo waxaa hoos u dhacay xaqiiqada raganimadii dhabta ahayd maanta waxaan furaynaa albaabka SG community codes ma ahan meel lagu sheekaysto oo kaliya ma ahan YouTube channel oo kaliya waa madal ku dhisan real space real man real talk real actions haddii aad rabtid noloshaada inaad xakamayso ku soo bir oo ila daawo ilaa dhamaadka waa dhowr sano ka hor mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya wiil lagu magacaabo Cali ayaa waxa uu ku noolaa falanqaynta dhalanteedka sheekooyinka iyo baraha bulshada wuxuu lahaa riyooyin waaweyn hadafyo cad iyo nolol toosan waxa uu rabay inuu caawiyo hooyadiisa waalidiintiisa naftiisa u hormariyo dadkiisana wax u qabto laakiin subax kasta markay qoraxda soo baxda waxa uu isku arki jiray asigoo taagan isla meeshii isla noloshii ma jirin real space deegaan dhab ah ma jirin dhiirigelin dhab ah isgarab istaag dhab ah cali waxa uu ogaaday in hadalka badan uusan dhisin guri maanta cali keligiis ma ahan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jira goobadaas jahwareerka ilaa ay ka helaan habnololeedka SG codes fikradda dhalashada SG codes waxay ka dhalatay baahi loo qabo in la helo habnololeed kaasoo dhalinyarada ka saaraya fadhiidka jahwareerka kuna soo dhaweynaya qiyamka raganimada dhabta ah iyo qaadashada mas'uuliyadooda nafdhiska iyo horumarinta nolosha iyo inay ka faa'iideystaan noloshan degdega ah iyo fursadaha casriga ah iyo inay la jaan qaadaan noloshan degdega ah iyo ka faa'iideystaan fursadaha casriga ah sida laga soo xigtay maqaal caan ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta nool waxay u baahan yihiin wax ka badan aqoon jaamacadeed waxay u baahan yihiin deegaan maskaxeed real space rag dhab ah real man hadal dhab ah xaqiiqi ah real talk iyo ficil dhab ah oo xaqiiqi ah real actions the SG codes inaan ka baxno waqtiga iska fadhiidka ah hadalka bilaashka ah aan u gudubno nolol dhisan ficil dhab ah space dhab ah iyo nolol dhab ah maanta waxaan u baahanahay waxbarasho ka badan mid akaademiyad ah waxaan u baahanahay xeer hoosaadyo codes kuwaasoo noo qeexaya qofnimadeena akhlaaqdeena iyo habka aan ula macaamili lahayn waaqican adag ee qarniga 21aad markaan ku leenahay real man iyo real actions waxaan aasaaska ka qaadanaynaa diinteena suuban ee islaamka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraan ku yiri min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi ayadan waxay inoo tilmaamaysaa in raganimada dhabta ah ay tahay runta iyo balan oofinta waa dhiiranaan waa qiyam toosan waa in ficilkaaga iyo hadalkaaga ay siiyaan waa maxay astaanta ninka dhabta ah ee muslimka ah waa kan leh amaanada iyo mas'uuliyadda inuu istaago daryeelka qoyskiisa iyo naftiisa xakamaynta naftiisa inuu ka adkaado caajiska naftiisa u hogaamiyo oo aysan iyadu hogaaminin akhlaaqda suuban sida runta dhowrsanaanta iyo u naxariisashada dadka daciifka ah awoodda dhabta ah ee SG codes waxay ku jirtaa afar tiir oo midba midka kale dhisaayo aan ku fahamsiyo si faahfaahsan oo kala dhigdhigan kow real space deegaan dhab ah waa maxay deegaankaagu yaad la fadhiisataa yaad waqtiga ugu badan la qaadataa xageed waqtiga ugu badan ku bixisaa yaad raacdaa maxaad daawataa maxaad dhegaysataa haddii intaasu ay yihiin wax macno leh adiguna waxaad noqon doontaa qof macno leh sababtoo ah deegaankaaga ayaa qeexaya qofnimadaada ka taxadar deegaankaaga SG codes koodka koowaad ee SG waa space meel lagu qeexayo lagu falanqeynayo horumarka disbiliinka mustaqbalka naf edbinta jihaynta nolosha diinta iyo akhlaaqda suuban iyo waxyaabo kale oo fara badan koodka labaad real man rag dhab ah ninka ragga ah ee dhabta ah maahan kaliya mid murqaha waaweyn xoog weyn jir weyn waa kan ereyadiisu ay miisaan leeyihiin qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisa ay toosan tahay mug leh oo miisaan leh ninka ragga ee dhabta ah waa kan mas'uuliyaddiisa qaata u istaaga dhibaatada xalkana keena koodka saddexaad real talk hadal dhab ah waxaan ka daalnay munaafaqada iskawaalista baraha bulshada dhalanteedka iyo ammaanta beenta ah waxaan halkan kugula wadaagaynaa oon ka sheegaynaa
hadalka dhabta ah ee loo baahan yahay in la maqlo runta qaraar waxaan idin la wadaagaynaa runta qaraar hadalka xanuunka badan erayada saameynta leh ee qof walba aysan ku dhiiranin sidee nafta loo hormariyaa sidee nafta loo edbiyaa sidee mustaqbalka loo dhisaa iyo waxyaabo kale oo fara badan koodka afaraad ee ugu dambeeya real actions ficil dhab ah halkani waa halka ay wax walba isugu imaadaan fikirkaaga oo dhan hadalkaaga oo dhan waa eber haddii aysan jirin ficil dhab ah qodobka ugu muhiimsan iyo koodka ugu muhiimsan waa halkan ficil dhab ah real actions midaas ayaana kala saaraysa kuwa riyoonaya iyo kuwa guulaystayaasha ah aan si kooban u eegno qaadashada habnololeedkan SG codes faa'iidooyinka maareynta waqtiga iyo wax soo saarka shakhsiyadeed oo sareeya kalsooni buuxda oo nafsadeed maskax dhisan iyo muuqaal soo jiidasho leh qoyskaaga iyo bulshadaada oo kugu faana qadarin iyo qiimo bulshada dhexdeeda ah ixtiraam iyo tixgelinta hadalkaaga dhinaca kale waxaad weynaysaa saaxiibo fara badan kuwaas oo kugu hayn jiray waqti lumiska waxaadna dareemi doontaa culays maadaama aad qaadayso mas'uuliyad adag oo aad weyn waa wado cidla ah sababtoo ah ficilka dadkoo dhan ma jecla markaad qaadato SG codes waxaad helaysaa qofnimo suuban nidaam nololeed oo cad iyo inaad noqdid qof dhalinyaro ah kaasoo leh qiyam toosan hadalkiisu cad yahay ku nool waaqiciisa leh maskax dhisan iyo muuqaal soo jiidasho leh misna qadarin fiican ku dhex leh bulshadiisa iyo qoyskiisa haddii aad maanta diyaar u tahay inaad bedeshid noloshaada halkani waa 5 talaabo oo kugu caawinaya isbedelkaas waa 5 talaabo oo dhab ah talaabada koowaad sifee saaxiibadaada clean your space ka fogow saaxiibada iyo dadka kugu dhiirigelinaya iska fadhiga xanta iyo maalayacniga iyo waqti lumiska talaabada labaad xadid waqtigaaga screen time-ka iska yarey isticmaalka taleefankaaga ugu yaraan 2 saacadood maalintii hoos u dhig oo yaree kuna bedel akhris barashada xirfad ama luqad talaabada saddexaad ballanta iyo runta be a man of your word haddii aad wax qabanayso maanta haddii dhigin naftaada beena u sheegin erayadaada ha kaa turjumaan talaabada afraad dhis jirkaaga iyo maskaxdaada samee jimicsi jiimka tag oo aalmintee si uu jirkaagu dhismo ilaali salaada akhriska badi si ay maskaxdaada u korto u degto oo u xasisho talaabada shanaad ku soo biir SG community ha noqonin qof go'doon ah raadi kuwa kula mid ah oo adigoo kale ah kuwaasoo hagaajinaya noloshooda raba horumarka naftooda hagaajinaya noloshoodana horumar la raba sidaadoo kale halkani waa hoygaaga waa hoygeena hoyga dhalinyarada noocaaga kale ah ku soo bir fursadan oo ha seegin bulshada saaxiib dhigeyso ilaa goormaad ahaan doontaa qof iska hadla qof faana qof ku nool dhalanteed deegaankan waa deegaan dhab ah looga hadlo hadallada dhabta ah laga helo ragga dhabta ah laguna sameeyo ficilada dhabta ah hooyadaadii aabaha waxay rabaan inay ku arkaan nin u istaaga iyaga qaata mas'uuliyadda naftiisa wax u qabta nin magac iyo sharaf leh oona isdhiibin oona calacalin ha isdhihin waqti ayaa iga lumay beri ayaan bilaabayaa ha dhihin maanta muuqaalkan aad daawanayso waa bilowgii noloshaada cusub raggu ma calacalaan ma caytamaan ee waxay qaataan go'aan adag iyo mas'uuliyadda noloshooda noqo ninka ay noloshaada u baahan tahay familkaaga u baahan yihiin bulshada u baahan tahay the real man naftaada u sheeg oo aamin in guushaadu ay adiga kugu xiran tahay mas'uuliyadda naftaadana ay adiga ku saaran tahay go'aan qaado ilaahayna tala saaro insha allah waad guulaysan doontaa haddaba haddii aad rabtid inaad noloshaada ka hormarisid qiyam toosan maskax dhisan iyo muuqaal soo jiidasho leh akhlaaq suuban ku soo bir SG community haddii aad ka heshay koodhadhka aan kuu sheegay iyo lifestyle-ka SG community ku soo bir oo ha seegin fursaddan jiilkan waa jiil dahabi ah jiil wada koraya ishorumarinaya iscaawinaya waxaan halkan u joognaa inaan ka takhalusno cajiska ka baxno nolosha dhalanteedka qaabilno nolosheena la noolaano waaqiceena runteena waxaan rabnaa inaan dhisno jiilka soo socda ee mucjisada ah ee Soomaaliyeed kuwaasoo horumarinaya naftooda dhisanaya bulshadooda caawinaya dadkooda iyo dalkoodana horumarsanaya insha allah jiilka bedeli lahaa mustaqbalka Soomaaliya halkan ayuu ku jiraa adiga ayaa kamid ah anaga ayaa kamid ah aan iscaawino aan iskaalmayno insha allah ka hor intuusan muuqaalka dhamaan su'aashii ugu dambeysay ayaan ku weydiinaya xalay markaas hanaysay ma ku qanacsanayd qofka aad tahay noloshaada ma ku qanacsan tahay haddii ay jawaabtaada maya tahay weli fursadda isbedelku gacantaada ay ku jirtaa hadda qaado go'aankii ugu dambeeyay noloshaada gacmo wada jir bay wax ku gooyaan anakoo wada jir ah SG community ahaan aan isku dhisno aan isku horumarino insha allah koodhadhkaana aan ku noolaano si aan u noqono rag dhab ah la nool waaqicooda xaqiiqada noloshoodana wajahaya insha allah waxay noo ballanaa videogan insha allah subscribe sar like sar videoga share garee asaab noocaad oo kale ah waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno
jiilkan waa jiil dahabi ah. waxayna baranaa fiideogan insha allah. maca salaam.